intaas kadib golaha wasiiradu waxay ka hadleen kana doodeen doorashooyin ka socda Somaliland aad iyo aad baa golaha wasiiradu ugu hambalyeeyeen sida nabadda ay doorashooyinkaas u dhaceen iyo ololihii doorashada sida loogu soo banbaxay shacabka deegaanadaas uga qayb qaateen oo waliba loo arkay inay doorashooyinka wadamada galbeedku qaarkoodba ay ka sii sareeyeen marka guul u soo hayay ummadda Soomaaliyeed iyo Soomaaliya ayaa arintaas loo arkay hambalyana loo diray si nabadna u dhacday lana soo dhaweeyay wali waxa socda tiradii codeynta oo inaan ka warsugno marka la soo saaro go'aanka Soomaaliyana maaragtay qaybaheeda kalena in wax badan laga baran karo oo natusaysa in Soomaalidu ay runtii sameyn karaan arrimo noocaas oo kale ah waxa kale oo iyadana goluhu soo dhaweeyeen cid alaal cid ku guuleysatay in la soo dhaweeyo sida nabadda ay xisbiyada kala duwan doorashada ugu wada qayb qaateen laga rajaynayo inay u soo dhaweyn doonaan go'aanka guddiga doorashooyinka Soomaaliland marka uu soo saaro intaas ayaa golaha wasiiradu maanta ku koobnaa waa mahadsantihiin